iyadoo weli uu socdo wareegii labaad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa waxa galabta kulmay gobolada Hawd iyo Maroodijeex oo ka wada tirsan hormada koowaad ama groupka koowaad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaana galabta ciyaartani dhex martay labada dhinac ee ahayd ciyaar aad u farshaxansan isla markaasna ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah waxaana guud ahaanba maanta si weyn loo adkeeyay ammaanka markii maalintii shalay ahayd ciyaar rabshado xoogan wadatay ay ka dhaxdhacday gobolada Saaxil iyo Awdal waxaana ciyaarta maanta dhex maraysay gobolada Hawd iyo Maroodijeex qaybtii hore ee ciyaartaasi u suurta gashay in xulka gobolka Maroodijeex uu saxeexo daqiiqadii 17aad ee ciyaartaasi laacibka uga ciyaarayay weerarka ee lagu magacaabo Maxamed Goofinta oo sitay lambarka 11aad waxaana ciyaartaasi qaybtii hore ku soo gabagabowday hal gool iyo waxba iyadoo gobolka Maroodijeex iyo Hawd weeraro badan oo qaadeen aanay u suurta galin inay wax gool la dhaliyaan markii la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa xulka gobolka Hawd uu dadaalo badan muujiyay balse uma ay suurta galin iyadoo dhamaadkii ciyaartaasi iyadoo qadar ka harsan yahay uu xulka gobolka Maroodijeex u dhaliyay goolkii labaad laacibka Cabdikariin Guje oo sitay lambarka 6aad isla markaasna u xaqiijiyay 3 dhibcood ee gobolka Maroodijeex ay maanta ka qaateen tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaana ciyaartan ahayd mid si nabadgelyo ah ku soo gabagabowday iyadoo si adkeynaysa dhankii isku dhawaanshaha dhibcaha ee groupka ay ka wada tirsan yihiin labadani gobol waxaana haatan groupka koowaad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland hogaaminaya gobolka Maroodijeex oo leh 4 dhibcood iyadoo gobolka Hawd uu ku jiro kaalinta labaad isla markaana leeyahay 3 dhibcood halka gobolka Togdheer uu leeyahay 2 dhibcood iyadoo gobolka Sanaag oo kaalinta ugu hooseeya ku jiraan uu leeyahay 1 dhibcood waxaana la filayaa in si weyn ay goboladan ugu kala bixi doonaan wareegga saddexaad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland dhinaca kalena wasiirka wasaaradda ciyaaraha Somaliland iyo xiriirka kubadda kolayga ee Somaliland ayaa habeenkii xalay go'aamo iyo ganaaxyo ka soo saaray rabshadihii keenay in garsoore ka tirsan garsoorayaasha kubadda kolayga ay dhaawacyo soo gaarsiiyaan xulka kubadda kolayga ee gobolka Gabiley waxaana go'aamada ay soo saareen wasaaradda ciyaaraha Somaliland iyo xiriirkuba ay ahaayeen in xulka Gabiley 2 ciyaartoy oo ka tirsan guud ahaanba la ganaaxay 2 ciyaarood isla markaasna uu xiriirku guud ahaanba u diiday tababarihii gobolka Gabiley inuu sii hogaamiyo ciyaaraha soo socda xulka kubadda kolayga oo Gabiley go'aamadaas iyo go'aamo kale oo badan ay wasaaraddu soo saartay ayaa iyagu noqonaya kuwii ugu horeeyay ee xal laga gaarayo khilaafaadka isboorti ee soo wajahay tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaana wasiirka ciyaaraha oo halkaasi ka hadlay uu Xuseen ciyaartii rabshadaha wadatay ee maalintii shalay ahayd dhex martay gobolada Awdal iyo Saaxil ayadana go'aamo ka soo saari doonaan isla markaana ay wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland inta badan ay eedda saarayso khilaafaadkii shalay halkaasi ka dhacay labada gobol ee Saaxil iyo Awdal waxaanu ugu baaqay in loo baahan yahay in ciyaaryahanada iyo maamulka goboladuba ay ka wada shaqeeyaan sidii tartankanu uu ugu sii socon lahaa si hufan